Muddooyinkii dambe waxaa kor u socday tirada dadka danta yar ee ka soo cararaya abaarta daran ee ka jirta dalka Soomaaliya ee soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaas oo ka kooban carruur, dumar, waayeello oo u nugul inay u geeriyoodaan gaajada haysa darteed. Tiro ku dhow 70 qoys oo la ildaran gaajo ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo, kuwaa oo deegaanadooda kaga soo cararay gaajo darteed. Waxa ay soo maciin bideen Baydhabo, waxa ay ka mid noqdeen dadka ku jira xerooyinka barakacayaasha Baydhabo. Waxa ay la baxeen magaca sabar yaasad leh oo la micno ah qofkii samraasadkiisa hela. Tiro ku dhow 70 qoys oo u badan carruur, dumar iyo waayeello iyo kuwa da'yar ah waxay u soo dulqaadan kari waayeen baahida daran ee soo wajahday deegaanadooda. Waxay soo maciin bideen Baydhabo, ma jiro hay'ad ama shaqsi ka jawaaba baahida ay qabeen. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka danta yar oo la hadlay warbaahinta. Aragday dhulka jiifadaha in hungurina haay hiraabtan dabye wala saarna jar waa ku ilaahay hadda tasarku la garoog eeda dhiban qabna na qaraaba keel uni awlaadana na qobad ya am baahna eeda nanin qobad irtaag dorina dhamaay hayte anta suugun meel on horan made aragday ad amanka intuna koyni waa muslugna siima meel on jikoodan dabmay birgmay kasiya atib jikoodii taasay raabtan oo ooji fiiri eeda qaraaba antugna eeda gargaran tugna gargaarna ilaahay la ka hele reede halkan saasay hunguri lehna gali olmahan yitubno kan lehna diboodi dalkanon may dhaxay buu jadiid meelaha ka horne dad aragday ada dhibaatadaas la horne ilaahay gargaar ka reedin gargaaro fadaan hungurina nasi mas'uulana nin qod gololina nasi uni awlaadana nana qobada fadaan dhibaataha ka tabni wadankaano abaar sidii wal un qobadana male ka gini la jari haska ka tabni awlaada galantaha qobani madun awlaadilanki awlaadis dareeras hamiinyaala dhahdaha gali halugaay inta koyni walaalay walka tuugsadahayn dabkaana mayshidaw gololka jiifadaana maqabna aa koroordaana male hamiin gurhalyin kole karoodan imaankana sugunye saaseta bilaanlayn badangna obsadaana walaalyaalow nana qaraaba kiilhanuma fadaana inta bil ibara roogna rafaad inta ma dhaafaw dabateedana mayshidoy biif meela korooraan male biyo beesu hoob ilaahay nana ogoonsado nana qaraaba kiilhanuma fadaana unu awlaadana iska rafaadsan abaarwiinta dadka dhan dhamaayas indhiinaba dhamaadahayn musqul ma qabna horta ma doortalankii wal aamiya haaray hamiin dadwiinka ma dooyoonay musqulo baan bahayn awlaadana binaankaseedas awlaadiba wal siin waaysan horta irsaagdinaani mariisyo gololo ka jiifno hamiin dhilmaanyo oo lan dareemane awlaadile aamaso hiraabtar fufuur intale la araga wanahayta umutung isan argaasan umudoonaytay baraka aho rafaadsano lan wal haysan lahayne hatta geege aaday ngaraana araday ngaraana meelung lang yo wal kagaadaan line gololo ma qaban wal yo qaban male gudoomiyaashu aniba mankay kan mayn gobado kor walba man gobado kor ma weelada ilaakis sidii oonaytay hay'ado samafalka iyoonay wasaaradaha iyo dawladda dadkaasay intii wal gobadan odsije ya fadaan ini umutung on bi musqul male aragay laabateedun alla ka qaadiya la ka haare hatana hiraabti wal haaga hatana wal suubiya hamiin meelun ka haarana ka qaadiya musqul iwal magaban irsaag diin sanagati wal dhiibay malahi ida qoys leeyahay lama berika diblan ko lama lango in ko lan walkin shana male dibkaasan haysid Khalid Cabdi Ibrahim, telefishinka caalamiga Goobjoog TV, magaalada Baydhabo.